liibaan axmed xasan sidee buu uga adkaaday mahad salaad iyo qoorqoor raggii haystay hay-adaha sirdoonka qaranka nisa iyo madaxtooyada galmudug? maanta kama hadlayno taariikhda liibaan shuluq iyo in kursiga madaxweynaha galmudug uu u qalmo iyo waxa uu ka shaqayn jiray keliya. waxaan ka jawaabaynaa hal su'aal oo ah sababta guushiisa ma lacag bay ahayd mise waxay ahayd siyaasad si xeel dheer loo soo farsameeyey? kursiga madaxweynaha galmudug haddii lagu saleeyo xeerka aan qornayn ee beelaha waxa ay ahayd in uu wareego oo isku maro gaalkacyo, cadaado iyo gurceel. haddaba maxaa sababay kursigaasi inuu u dhexeeyo gaalkacyo cadaado gaalkacyo? liibaan shuluq waxa uu tartanka soo galay iyadoo laga horreeyo 100 tillaabo, xilli loolanka u dhexeeyo keliya labada nin ee awoodda dalka iyo maamulka haystay. haddaba muddada kooban ee uu liibaan jaray xawaaraha kuna dhaafay raggan waxaa sababay ma ahan in lagu macnayn karo lacag keliya ee waxay ahayd shakhsiyaddooda iyo sida ay tartanka u wajaheen. 4 qodob ee liibaan caawiyey ayaan ku qeexi karnaa sidan. 1. liibaan waxa uu beegsaday dallaalayda siyaasadda oo ay ugu horreeyaan xildhibaannada federaalka ee aan lahayn hanka sare ee madaxweyne lagu damaaciyo. kuwan waxa uu siiyey damaanadqaad siyaasadeed oo ah inaysan lumin doonin kuraastooda oo ay halkooda joogayaan. 2. liibaan waxa uu ka howlgalay siyaasad niyadsami leh isaga oo ballaariyey qariiraddiisa. waxa uu hantay gaalkacyo ilaa xarardheere iyo guud ahaan galgaduud. taalidkeeda mahad salaad oo fursadaha iyo wakhtiga u hiilinayeen waxa uu xooggiisa iyo wakhtigiisa ku lumiyey isreebreeb beeleed hoose. waxa uu beegsaday, xiray ama subcad jiray siyaasiyiinta miisaanka lahaa ee dhuusamareeb iyo gurceel si uu saaxadda ugu keliyaysto. taasina waxay horseedday in kursigii uu reerkiisa dhaafiyey isagana isdhaafiyey. xaalka mahadna waa riibigeeda ma daaqo lagamana daaqo. dhanka qoorqoor fursaddiisa uga yarayd maadaama la hubay in markaan kursiga cadaado uu ka wareegayo. haddana qoorqoor waxa uu muujiyey rakarooni isagoo muddadii xilhayntiisa labanlaabay galmudugna uga tegay taariikh. 3. liibaan wuxuu samaystay koox siyaasadeed khibrad leh oo shaxda dhigi taqaan, kuwaasi oo ahaa raggii sababta u ahaa guushii farmaajo sannadkii 2017 iyo guushii xasan sheikh 2022. 4. madax bannaani dhaqaale si ka duwan siyaasiyiinta xilka u raadisa inay xoolo ka abuurtaan. liibaan waxa uu fagaaraha la yimid isagoo dhaqaale ahaan isku filan, taasi oo siisay awood gorgortan. gebagabadii lacagtu qayb ma ka ahayd guushii liibaan ee galmudug? haa, hal qof ayay xallisay waana xasan sheekh maxamuud. liibaan waxa uu soo qabsaday shaqo guri ka hor intuusan xasan sheikh kursiga ka iibsan. haddaba guusha liibaan waxay horseed u noqon doontaa in tujaarar xarbiga iyo hantiilayaasha burburkii kadib xoolaystay ay dalka madax ka noqdaan ama ay jaangooyaan siyaasadda Soomaaliya.